dana dhalinyarada dalkan nahay oo gabdhaha hablihiina hooyooyinka Soomaaliyeedna waan nahay in dalka wax ka difaacno iyadana waajib saaran waa farxad yahay shacabka ka dhimadahay sidaas darteed aan ka beeraday inaan dalka ay difaacay ما يبقى ندور ذا إيران كدنا ما يبقى ملاي وتكو شعبنا ما يبقى كفكرة كوماندوس ميليتري إني أنا يعني كفكرة سو إلهي صورة قلي الحمد لله صورة قلي عادنا جاك ما يبقى إسلامي لين كسرت يكون كوماندوس دكتين كعدد كائن كجرت عمل إسلها دنا وقت السنة ما شاء الله عيدا محل أساس اللي هو قوتي أكتوبر إذا عدها يوحسن كل جيستي هاي صوب حذي مدام أو وحبرتي خبرة iyo waxyaabaha aan bartay inta badan ku badbaadin karo dan aan noqdo in xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan militariga aan noqdo shabaab inay yihiin shayaadiin oo ay ilmihii jahannamo yihiin oo xadabu jahannamo yihiin oo shayaadiin yihiin oo ay waajib tahay in lagu jihaado oo lala diriro madaliil baan u baahanahay midka shalay hiiraan waxaan aragteen ka sameynayay ma daliil u baahan in lala diriro ma in kitaabka iyo quraanka wax looga raadiyo u baahan yahay rag iyo gabdho way iga soo reeyeen hablii kale iga soo reeyeen oo iga dhiirigeliyeen oo soo dhaweeyeen wajh farxad leh anigana dareen ahaantayda wallahi ku faraxsanahay inaan gabar oo macna aan ku soo biiro askartii gabdhihi kalena iga horeeyeen aniga ugu maan horeeyeen waligeed askar noqon jiray gabdho noqon jireen wax ceebana ma aha Soomaa wax dalkaaga inaad ku qabatid dana dhalinyarada dalkan nahay oo gabdhaha hablihiina hooyooyinka Soomaaliyeedna waan nahay in dalka wax ka difaacno iyadana meesha ku jirta waajib saaran waa caalamka waxa nabad ka dhigay horumarka hormuudku ahay hablo waa marka annagana hablahana Soomaaliyeed waxay fahmeen dalkooda inaansan wax uga roonaysan jirin inay ciidankii ka mid noqdaan inay arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada marka kaalaya soo gala gabdhaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo dhaweynayna gabdho walaalaga ay beer lahaayeen دي جيفتنا ما بير الله دلكن دفاع يعني عدوك كدفاع عدوك هدني للدجال ما هي عدوك كلعني فولندا سودان نسكو دفاع لعن اسقبسنا اسكاشنا يا الله sida awgeed hadii aan haweenka Soomaaliyeed waxaan taaganahay safka hore waxaan taageeraynaa ciidamada qalabka sida waxaan taageeraynaa cid kasta oo ka shaqeynaysa amniga iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waa arkaysan hiiraan waxa ka dhacay baabuurta caruurta lagu gubay dadka la laayay waxaan garanay hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed inaan dagaalkan safka hore ka dagaalano ciidanka garab istaagno dawladda garab istaagno annaguna aan ka soo saarno guriyaha wixii aan aragno aan soo qabanno